xogo xasaasi ah oo dheeraad ah ayaa laga helayaa qaabkii loo dilay taliyihii dowladda Soomaaliya ay ku aamintay in uu al-shabaab ka xoreeyo Ceelbuur kabtan Maxamed Axmed ma jirtaa in ilaaladiisa ay qaarijiyeen oo dagaalka meesha ka dhacay uu ahaa shirqool xogaha isa soo taraya madasha online ayaa kula wadaagaysa sidoo kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa isbedel degdeg ah sameeyay mas'uuliyiin ayaa xilalka laga qaaday kuwa kalena waa loo magacaabay haddii ay tahay markii ugu horeysay oo madasha online aad ka daawanayso muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalkii qaraaraa ee xalay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ku dhex maray masaajid Cali Gaduud oo ka mid ah meelihii horey looga xoreeyay al-shabaab dagaalkan oo inta badan la isku raacsan yahay inuu ku bilowday kala shaki soo kala dhex galay ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan guutooyin dhowaan loo soo tababaray dowladda Soomaaliya oo furmaha ku cusub ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in ciidan ka yimid dhinaca iyo furmaha dagaalka iyo kuwa ku sii jeeday ay kala shakiyeen ciidamada ku soo jeeday magaalada Muqdisho ee ka yimid furmaha dagaalka ayaa la xaqiijiyay inuu hogaaminayay kabtan Maxamed Axmed taliyihii ururka labaad ee guutada Cumar bin Khadaab waxaana la warinayaa in taliyaha dilkiisa warar kala duwan ay ka soo baxayaan taliyahan waxa uu ku baxay gacanta ciidanka dowladda waxaana uu ahaa ninkii dowladda Soomaaliya ay ku aamintay qabashada magaalada Ceelbuur oo al-shabaab weli ay ku xoogan yihiin warar hoose oo madasha online ay helayso ayaa sheegaya in qaar ka mid ah ilaaladiisa rasaas ay fureen ay ku dhacday taliyaha halka wararka qaar ay leeyihiin ciidankii kale ee ka hor yimid in rasaas ay fureen taliyaha uu ku dhintay kabtan Maxamed Axmed waxa uu ahaa taliye tababar sare qaba isla markaana aan kaftamin aadna dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu kalsooneed ma aha nin hadda ciidamada ku soo biiray ee wuxuu ahaa nin weligiiba ciidamada ku soo jiray intii qaangaarka uu ahaa isaga oo lahaa xirfad aad u sareysa oo la dagaalanka argagixisada haddaba kiiskan oo ilaayo iminka dowladda federaalka Soomaaliya aysan wax war ah ka soo saarin ayaa waxaa wararka hoose ee soo baxay ay sheegayaan in wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka ay halkaasi u direen guddi xaqiiq raadin ah oo si hoose warbixin sax ah uga keena sida masaajid Cali Gaduud ay wax uga dhaceen guddigan ayaa marka ay gaaraan masaajid Cali Gaduud waxay wareysan doonaan dadka deegaanka ee goobjooga u ahaa dhacdadan sida ay wax ku bilowdeen ciidamada halkaasi joogay iyo weliba isku dhaca waxa keenay sarkaalkan muhiimka u ahaa dowladda ee ku baxay isla gacanta dowladda ayaa dad badan ay aad uga xumaadeen oo ay tilmaameen in macquul aysan ahayn dhacdooyinka noocan oo kala ah ee soo laablaabta in markastahi dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeedu ay dhexmaraan iyadoona ciidamada Cumar bin Khadaab ay ahaayeen ciidan dhawaan laga sagootiyay magaalada Muqdisho loona diyaariyay inay la wareegaan Galhareeri iyo Ceelbuur oo ah magaalooyin istiraatiiji ah oo maamulka Galmudug iyo dowladda Soomaaliya aad ay ugu tahmayaan in gacantooda ay soo gasho dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa isbedel degdeg ah uu ku sameeyay qaybo ka mid ah ciidanka xoogga dalka saraakiishii hogaaminaysay taliyaha ayaana waxa uu isku bedelay qaybaha kala duwan ee taliyaha qaybta 12aad iyo midka 27aad taliyaha ayaa waxa uu arkay in isbedel muhiim ah arintan ay tahay in si toos ah looga dareemo taliya ku-xigeenkii ciidanka lugta oo xilka laga qaaday Xuseen Cali Xoosh ayaa xilkan isagoo horey u hayay waxa lagu bedelay General Ciro sidoo kale wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan taliyaha qaybta 12aad oo horey u hayay xilkaasi General Xasan Jaamici in lagu bedelay Cornel Cabdi Salaad qaybta 27aad ee maamulka Hirshabelle waxa horey u hayay oo taliye uga ahaa General Tabane waxaana lagu bedelay General Kooshin taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaana dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay xilalkan ula wareegaan taliyaashii loo magacaabay iyadoo tani loo arko inay qayb ka tahay hanaanka dardargelinta u diyaargarowga dagaal ee shabaabka ka dhanka ah ee dowladda Soomaaliya ay wado dhinaca kale waxa ciidamo iyo saraakiil iyo xildhibaano iyo wasiiraba ay ku qulqulayaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug halkaasi oo lagu wado in saacadaha na soo aadan uu gaaro madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo halkaasi saldhig ka dhigan doona wafdigan oo gogol xaar u ah wafdiga madaxweynaha ayaa waxa
ay sii bilaabi doonaan hanaanka xaqiijinta ammaanka, waxaana ka sii horeeya taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad, iyadoona ammaanka magaalada Dhuusamareeb si weyn loo adkeeyey. taliyayaasha ugu muhiimsan ciidamada xoogga dalka ayaa halkaasi iyaguna ku sugan oo sheeda kala socda sugidda ammaanka. magaalada Dhuusamareeb ayaa xarun u noqon doonta ubuucda ugu weyn ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ka hogaamin doono dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, iyadoona aan la ogaan karin hanaanka madaxweynaha uu ugu guuleysan karo in si fudud halkaasi uga hogaamiyo dagaalka Al-Shabaab, maadaama Al-Shabaab ay weli ku xoogan yihiin deegaano badan oo ka tirsan maamulka Galmudug, kooxdana ay weeraro shirqoolo ah ka dhex fulinayso laamaha kala duwan ee dowladda. wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa. madasha online ayaad ka daawanaysay muuqaalkan kan xigeentan dib ugu kulmi doono. sidaa iyo nabadgelyo.